بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan wax yar idin sharaxayaa. waxaan ahay Sacdiya Sauce ama Sacdiya Gourmet hot sauce ama Sacdiya Gourmet foodies. waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo joogta magaalada Mareykanka una dhalatay Soomaaliya magaalada Muqdisho. waxaan sameeyay producti aan ku alifay aniga gurigeyga aniga oo ugu talagalay in aan maaragtay ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan ama ilmaha waarid la'aanta agoomada ah wax uga qabto. kadibna production-kaas aan sameeyay dartiis waxaan ku guuleystay in aan sameeyay cunto aad quality heer sareysa leh oo noqday cunto sokorta dadka leh ay cuni karaan, dadka dhiigkarka qaba ay cuni karaan, dadka allergiga cuntooyinka ku qaba ay cuni karaan. waxaan aad ugu faraxsanahay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu igu ilhaamiyay programkaas. ilaahay baana mahadda iska leh. marka waxaan aan idin sheegayaa in aan ka bilaabay zero gurigeyga jikadeyda aan ka bilaabay isku dardaray kadibna aan gaarsiiyay commercial kitchen oo loo yaqaano jikooyinka professionalka ah ee wax lagu sameeyo. jikadaas aan ayadana muddo dhowr sano ku sameynayay kadibna aan isu bedelay inaan warshad sameeyo. programka waa arkaysaan videoga warshadda iyagoo dadka cadaanka cuntada cunayaan, ayagoo amaanayaan, ayagoo maaragtaa quality ka hadlaan, ayagoo gadanaya, ayagoo maaragtaa waxyaabo badan isugu jira. programka marka aan taaganahay meesha dalada leh waxaan ahay aan ka shaqeynayaa oon joogaa gobolka Texas. anigana programka waxaan ku sameeyay cuntada Minnesota. waa garan kartaan Texas iyo Minnesota farqiga u dhaxeeya. halkaasoo award ku soo qaaday oon ku guuleystay basbaasyadii Mareykanka lagu sameeyay aan noqday number 1. marka alxamdulillaah waxaan idin sheegayaa haddana in aan warshadda aan ku sameeyo ay warshad sameynayso. waa arki doontiin videoga warshadda markay sameynayso in dhex joogo dad cadaan ah in gabar Soomaaliyeed waxay aliftay dad cadaan ah oo Mareykanka u dhashay inay aniga ii shaqeeyaan waa wax lagu farxo. runtii waxaan la hadlaayana waa ummadda Soomaaliyeed hal abuurka aan sameeyay. alxamdulillaah waana magac ummadda Soomaaliyeed oo dhan u soo hooyanaya oo ma aragtay magaca Soomaaliyeed kor u qaadaya. waxaan idinka codsanayaa warshad ayaa abaabulay hadda aan ka sameyn doono Cumaan waa international strategy plan oo aan ka sameynayno waa warshadda. waxyaabaha aan warshadda Cumaan uga sameynayna waxay tahay in aan sameyno in loo dhoofiyo Mareykanka, in loo dhoofiyo Yurub, in loo dhoofiyo Asia, in loo dhoofiyo Carabta, in loo dhoofiyo Soomaaliya iyo Africa, East Africa, West Africa, maaragta adduunka oo dhan, Australia meel kasta inaan geeyno productigan. waa meel maaragta strategy fiican leh. waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto in barnaamijkaas ay ka qayb qaataan oo ay investor gareystaan companygaas lacagta ay investor gareystaan. maxaa yeelay aniga waxaan waa abaabulay waana alifay laakiin waxa iska leh programkan ummadda Soomaaliyeed. miihi qof kaligeed wax shaqaysanayso. ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto companygan waa companygoodii ha ka qayb qaataan ha investor gareystaan. warshadan warshad Soomaaliyeed bay noqon doontaa biidnillaahi baari oo ma aragtay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto ay ka intifaacadaan. ma ahan inaan u fakarno sidii hore dadkeenii hore ee Soomaaliyeed ee xoolaha sameyn jiray milyaneerada ahaa xoolahooda tunkay ku wadan jireen maalintay dhintaana qabriga la gali jireen.